علو علو عبد الله يوا على ميرانوا علو عرد الروريوا علو عصب لاعيوا علو مين لقى عرابي عروري لقى حنبارتي اللو ودن عرري واين اللو ودن عيلو هجنين هل كاغا لقى مسيحرو هشاد لقى ممارو دلانك لقى موايو دداب بلوس لقو مسارو afka Soomaaligu waa mid ku dhisan maanso mahmaah murti iyo suugaantuna waa qaybta ugu hodansan afka Soomaaliga waana sida magaceedaba ku tusan suugada iyo idaanka afka haddaba munaasabaddan waxay mid in yartu isqabatay isla markaasina isku arkeen bulshada haldoorkeeda dhalinyaro aqoon-yahaniin waxgarad uqaal abwaano siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa habeenkii xalay ka qabsoontay hoolka hotel dare ee magaalada Burco munaasabaddan waxay misheer siraha loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu soo bandhigayay deegaanada magabaxay afka hooyo waa hodan oo qalinka u qaatay qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan waxaana munaasabadda soo qaban qaabiyay naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaa oo ka mid ah ururada hoggaanka u haya gobolka Togdheer waxaana iyana kaalin mugla ka qaatay shirkadaha daabacaadda Asal Jatiyogol iyo shirkadda caanaha ee Holland ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha naadiga halkaraan Mustafa Magaalo iyo Farax Dayax Weerar oo faahfaahin dheeraada fagaaraha kaga bixisay si farshaxamaysanna uga warantay taariikhda qoraaga iyo muhiimadda iyo murtida uu xambaarsan yahay buugani caawa waxaan joognaa munaasabad weyn munaasabad ka mid ah munaasabadihii naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan aad uga barateen bandhig buug ayaynu joognaa madasha bandhigyadu kala duwan oo kala mug weyn oo kala miisaan culus waxaynu fadhinaa mid ka mid ah bandhigyada ugu waaweynaa ugu qiimaha badnaa ugu dareenka iyo taabashada badnaa ugu saameynta badnaa xog kooban baa laydinka siin doonaa buugga laakiin buugga miisaankiisa iyo buucdiisa buuggaad ugu geli doontaa mid kalena waan idinku adkeynaya inaad buugga caawa maadaama uu faa'iido badan xambaarsan yahay maadaama uu afkeena ka hadlayo af Soomaaliga maadaama qoraagii aad garanayseen Maxamed Baashi Xaaji Xasan oo qoray inaad buugga caawa reer Burco aanu idin dhaafin Hargeysa laga keenay oo fog 300 kilomitir buu soo socday 1987 wuxuu Maxamed Baashi deeq waxbarasho ugu kicitimay magaalada Czechoslovakia isagoo ku biiray jaamacadda Charles University digrigiisa koowaad iyo labaad waxa uu ku qaatay journalism and mass communication waddanka Holland waxa uu muddo Maxamed ku noolaa isaga oo ka mid ahaa yagleelayaashii iyo shaqaalayaashii Radio Denmark waddanka Ingiriiska ayuu deganaa Maxamed Baashi laga soo bilaabo sanadkii 2000 waxa uu jaamacadda London ka diyaariyay postgraduate diploma law and communication leadership Maxamed Baashi Xaaji Xasan waa qoraaga saddexda buug ee kala halka haleen guriga haween iyo kartida haweenka ka soo sheekeynaya isaguna buug aad u muhiim ah oo garansiinaya dadka haweenku qiimaha ay leeyihiin buugga waxa lagu daabacay London sanadku markuu ahaa 2006 hal hantabay oo isaguna ah bal taariikheedkii iyo gabayadii Xaaji Maxamed Aadan Afqaloon oo isagana lagu daabacay London markuu sanadku ahaa 2009 hadda Maxamed Baashi Xaaji Xasan waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa waana agaasimaha Star TV haddaba haddaynu isla agrubiyo culista buugani waxa uu ku biyashubanayaa dhowr qodob oo iskaashanaya ama isbuuxinaya oo kala ah isla afka marxiltiisa u taagnaa xilligii aanu qornayn wuxuu kaloo ka sheekeynayaa hodantinimada oo wuxuu ka marakacayaa hodantinimada iyo tarminta afka Soomaaliga tayada erayadiisa qaabilayay meerisyo gabay oo sidii mahmaahda u dhaqan galay gabay ku mahmaahyo bayd ama baydada waxa kaloo ka sheekeynayaa maase ku sheekeyn doorarka iyo xaaladaha ay leeyihiin xidhaalayaasha laba laama shibanayaasha lama laabna qabiyo qoraalada afka Soomaaliga iyo raadadka afka qalaadi ku yeesheen afka Soomaaliga gaar ahaan Carabiga Hindiga Ingiriisiga Talyaaniga geesta kalena waxa iyana hadalka iska daba qaatay Cabdi Goodabe gudoomiyaha shirkadda Telesom Maxamuud Xaaji Ibraahim Maxamuud gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga kulmiya Bokor Carabi leeyahay mas'uulka socda shirkadda daabacaadda ee Asal Chief Caaqil Aadan Axmed iyo mas'uuliyiin tiro badan oo dhammaantood qoraaga uga mahad celiyay deegaanahan dhaxalka u noqon doona dhalinyarada Soomaaliyeed ee u dhalan doolay dhulka shisheeye kuna dhawaaqay ereyada qalaad
محمد باشا حاج حسن ونير هرقيسة وشخصي كنت يشمضن رنتي وشخص قري هنتي أمداد أيو بريديسي هداد ما أنت حفظت قلت ما دانيك سبحانك يا علي ما قلت هذا وارد بالكين laga yaabo inaan jeebka ku baaraba oo xoogaa yar ku siiyo laakiin isagu hanti qaran ayuu inidisi ma aha macnaheedu buugal maxamed baasha qoray waan akhriyay inaad fikirto oo buuga wax ku dartaaba loo qoraa horta buuga adigu inaad maskaxda wax ka dhaadhiciso malaayidku waa ku raaxaysanaysaa oo ku farxaysan laakiin aad waxaad uga xumahay in idinkoo da'dana la idiin sheego heestii dhamowa markaad dhalatee dhaqaaqday in la idiin sheegaaba aad magaranaysaa in nasiib darrowa muhiimadda uu leeyahay afka iyo dalkaba hooyada lagu lamaaneeyo sababta lagu lamaaneeyo waa afka hooyaad maqlaysaa iyo dalka hooyo su-aal aad iyo u baahan in laga jawaabo maxaa afka hooyo loogu lamaanaysiiyey dalkana hooyo loogu lamaansiiyey muhiimadda ay leeyihiin baa ayaa taas waxaa kaloo laga fahmaa ababshaha koowaad macallinka koowaad baruhu inuu hooyada yahay maxamed aad baan ugu hadlay maxamed wuxuu idiin mudan yahay wax weyn inta wax idiin kaydisa inta wax idiin qorta bugaagta haddaan la qorin ishbuhu wax ma kaydiyaan barbaartu maxay u haray qoraaga maxamed baasha xaji xasan runtii aad baan buuggan qiimaha badan afka hooyo waa hodan waa bug runtii qiimo badan xambaarsan oo runtii afkeennii wallaahi waxaan xasuustay caawa waa xasuusataano marka caruurnimada yaraantii miyii baan joogi jiray caruurnimada dadka carruurta waxa looga sheekay jiray marka adhiga la soo xareeyo sheekooyin yaryar sheeka iyo sheekadii oday biiqay iyo allahumma salli calaa sheekadii ku saabsanayd sheekadii geeljirow dhugufow halka ku jirta anigu isla aad akhridid waana soo xifdiini adigu sheekooyin fara badan oo carruurta lagu maaweelin jiro aad u qiimo badnaa ayaa jiray marka buugga runtii intii imkaan joogan akhriyo wax badan oo qiimo badan oo weliba ubadka yaryar iyo dhalinyarta barbaarta imika dugsiyada sare iyo jaamacadaha ku jirta ay u baahan yihiin oo afkeennii hodantinimadiisii iyo qiimihiisii soo celinaysa iyo xikmadiisii ayaa runtii ku dheehan runtii anaga farxad bay noo tahay inaan buuggan maxamed baasha xaaji xasan oo qoray afka hooyo aanu qaybtiisii ardaalintiisii labaad aanu keenno magaalada Burco ee gobolka Togdheer shakal ahaan asal madaxda ayay xarunteeda guud tahay gobolka Togdheerna waa ka jirta magaaladiisa aynu ku sugannahay ee Burco waxaan leeyahay buugga marka ugu horeysa sidaa la sheegay anigu waan iibsaday laakiin si maanan akhriyin wuxuuse macnihiisiiba kooraya magaciisi koowaad shayga waxa la yidhi aragtidiisu budeeda iyo wantiisu budeeda soo baxda magaca ayaa marka ugu horeysa marka xaal soo qoro ama artikel soo qoro ilwaanka qaybu ka yahay inaad akhrido ku gudbito magaca hooyo waa hodan wax la siisan karaa oo lagu bedeli karaa oo garan maayo dhuuxidda buugga iyo dhegaysi wanaagsan kadib gabagabadii iyo gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa dhiganihiisa su-aalo dhowrah laga weydiiyey qoraa maxamed baasha xaaji xasan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen bay dadka gabayada ee halku dhiga noqda isagoo sheegay inay kaba mug weyn yihiin maamaha Soomaaliyeed waxaana ku jawaabay sida tan kulley waa suurtagal in siyaabo badan loo macneeyaa laakiin dugsi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaane rag cadaalad waayaa sidii cawsha kaleeya afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaashra mugii weel ma dhaafay allow muuskayaan jibin rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tullima meertan noo tahay masalaha ninkaan ii dhigaynuma muraad yeesho ninkii aniga iga maarmi kara midig ma saaraayo lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada gabayada maxay tahay baytul qasiidiyada gabayada ka soo jeeda waxa ay u dhaqmayaan oo loo cuskanayaa sidii maahmaahda oo kale halkii maahmaahdu godkii maahmaahda ayuu fariisanayaa aniga aragtidayda dugsi mara qabyaalada waxay dumisay mooyaane ama afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaashara
halku dhigga halhayska iyo halqabsigu wuu ka sokeeyaa oo dhinaca hadalka ayuu soo xigaayo matalan iska hadlow ina igari jijiga meydkeeda ha sidato kuwaas baa halku dhigiyo halhaysyo iyo halqabsiyo noqonayo waxay u dhaxeeyaan labadii badood ee gabayga iyo hadalka caadiga ah laakiin dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane wuxuu ku aroorayaa oo mararka qaarkood kaba xoog badanaya godkii mahmaahda waxaanu u dhaqmayaa oo loo adeegsanayaa sidii mahmaahda oo kale halkaasba waxaan ka keenay inay yihiin meerisyo mahmaahoobay isku soo wada duubo haddii la damco in ummad lagu duulo afkeeda ayaa laga dilaa dhiganahana waxa uu noqon doonaa difaac adag oo aan dushiisa la soo mari doonin waa maxamuud maxamed taajir maxamuud jesto Africa Cable TV magaalada Burco